gobolkan banaadir ay la kulmeen rag ku labisnaa dariiska ciidamada dawladda oo suuqa xamarweyne ka wadeen falal ammaan darro ah isla markaana ay halkaasi ka wateen ama ay ka kaxaysteen gaari ay leedahay shirkadda Telecom Soomaaliya waxaana ciidamada booliiska ee saldhigga Firdowd ay halkaasi ku dhaawaceen hal ruux oo ku labisnaa dharka ciidamada halka mid kalena ay halkaasi ku qabteen taliyaha qaybta booliiska ee bartamaha gobolka banaadir Cornel Ali Gaab oo ayna kula kulanay saldhigga Firdowdka ayaa inooga warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo sida laga yeelayo falalka ammaan darrada ee maalmahan ku soo badanayay suuqa degmada Xamarweyne saaka waxaan la kulanay dhacdo aad u farxun laba nin oo dariiska ciidanka wadata ayaa waxay isku dayeen inay afduubaan bartamaha suuqa Xamarweyne agagaarka masaajidka Marwaas baabuur ay leedahay shirkadda Telecom si qasaba ayaa ninkii looga dejiyay darawalkiina juuga loogu dhuftay amarna lagu siiyay inuu dhaqaaqo waxaa ka daba gurmaday ciidanka booliiska waxaan soo qabanay baabuurkii iyo nimankii nin ka mid ah nimankii wax dhacayna wuu dhaawacmay ninkii dhaawac ahaa iyo ninkii kale oo dableyda ahaa oo la socday oo asaguna qora watay labadoodii oo nina dhaawac yahay iyo labadoodii qoray waxaan ku wareejinay taliyihii ururka ay ka tirsanaayeen si looga hortago in qaladaad kala yimaado waana isaga wuxuu noo ballan qaaday in sharciga ay horgeynayaan oo ciidan ahaan ay sharciga u gudbinayaan baabuurkii Telecom waxaan u celinay shirkadda Telecom oo iska lahayd hase yeeshee ammaan darridan baasan ee haatan laga dareemayo suuqa degmada Xamarweyne ayaan ahayn markii ugu horeysay iyadoo inta badanna ay ganacsatada halkaasi ku nool ay ka cabanayeen rag ku labisnaa dariiska ciidamada kuwaas oo dhibaatooyin boob iyo dhac isugu jira u geysta inta badan dadka rayidka ah halkan oo suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka banaadir inta kasta ay ka dhacaan halka boobka loo socdo dadaalo la doonayo in wax looga qabto sida nurgeysay